sheekadani waxay ka dhacday dalka Iiraan oo xilliga xukumayay boqor hase yeeshee la yiraahdo Altamburi oo muddo 70 sano ah watay kabo oo marka ay ka sii dhamaadaanba jaan cusub sii saari jiray waxay kabihii ay noqdeen kuwa aad u culus oo masaabiir fara badan ka taagan tahay dadweynihii ayaa ka soo cawday kadib markii dad fara badan ay waxyeelo ka soo gaartay waxaana aakhirka Altamburi lagu amray inuu fogeeyo kabaha waxa uu ku duugay wado jidcada ah oo gawaaridu marto waxa soo maray gaari bas ah waxaana gaarigii ka dilaacay lugtii markii meesha la qoday waaba kabihii Altamburi waxaana la geeyay xaruntii booliska ahayd markale ayaa la amray inuu fogeeyo waxaana ku duugay duleedka magaalada waxa dhacday in magaaladii biyo la'aan soo food saarto waxa la amray injineeradii biyaha in ay cilad bixiyaan waxa sababay biyo la'aanta waxay u baxeen duleedka iyaga oo fiirfiirinaya tubooyinka biyaha ayaa waxa mid ka mid ah tubooyinkii loogu tagay kabihii Altamburi waa la soo qaaday waxa la keenay xaruntii booliska waxa markale la amray Altamburi kabaha inuu fogeeyo waxa uu soo qaaday kabihii gurigiisa waxa ku agyeelay wabi habeen barkii buu soo kacay markaasuu isiri haddii aad kabaha dariishadan ka tuurto oo wabiga ku riddo yaaba ku arki doona hase yeeshee niman kalumaysato ah oo shabaag u tiilay ayaa shabaqii ka dareemay culays waxay u qaateen inuu ugu soo dhacay kalluun waxay soo jiidaanba markii ay bannaanka keeneen oo ay sidaa u fiiriyeen waaba kabihii Altamburi waxay geeyeen saldhigii boolis ee u dhowaa waxaa loo yeeray Altamburi waxaa la siiyay fursad kale oo uu kabaha ku fogeeyo isagoo caga jiidaya kabahana habaaraya ayaa waxa uu go'aansaday markan inuu kabaha ku duugo meel xeeb ah markii uu xeebtii ka soo dhaqaaqay ayaa maalin maalmaha ka mid ah baa boqorkii u soo dalxiis tagay isagoo kubad ku cayaaraya ayaa waxa muday musbaar halkii buu ku cabaaday markii goobtii la qoday waxaa loogu tagay kabihii Altamburi gurigiisa isagoo iska jiifa reerkiisana la jooga ayaa ciidamo u yimaadeen kolkaa buu naxay waxaa loo geeyay boqorkii oo lugta ka dhaawacnaa inta madaxa foorariya isagoo oo gariiraya ayaa boqorkii ku yidhi sow kuwan maahan kabahaadii markaasuu yidhi haa inta aayar u gurguurtay ayuu boqorkii jilbihiisa qabsaday waxaana loo dalbay kaba cusub waxaana lagu yidhi mar dambe kabahan kuma dhibi doonaan aniga ayaa kaala wareegay isagoo faraxsan ayuu qasrigii ka soo dhaqaaqay Altamburi waad ku mahadsantahay daawashada